Maamulka gobalka togdheer ayaa gudida ka hortagga ee cudurka COVID-19 ee gobolka togdheer si rasmi ah ugu wareejiyey mashiinka lagu baadho qofka looga shakiyo cudurka dunida walwalka badan ku haya ee COVID-19 iyo sidoo kale gaadhiga gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalaaska taasoo ay hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ugu wareejisay ganacsatada Soomaaliland. gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafoq oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabkani. maanta waxaan ku wareejinaynaa isuduwaha caafimaadka ee gobolka iyo gudiga coronavirus agab caafimaad oo aan wasaaradda caafimaadka kala soo wareegnay haddaan nahay maamulka gobolka sida horeba u aragteen 4 qaybood oo ka agabka caafimaadka ah ambalaas iyo mashiinkii xanuunka lagu baarayay iyo 2 mashiin oo iyaga kuwa oxygen-ka dhaliya ah. waxaan ku wareejinayaa isuduwaha caafimaadka marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa gudiga heer qaran ee coronavirus oo madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeyo. geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalna mahadcelin ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka togdheer iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga hoosaadka ee gobolka togdheer. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka iyo ballanqaadkii wasiirka caafimaadka mashiinka PCR-ka waa kii aanu sugaynay waxaanu u diyaarinay meel ku habboon in la dhigo oo duruufo gaara u baahan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad isaga xil saaray in alaabtani in soo gaadho. waxaa kaloo u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka. waxaa kaloo u mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil. intaasba runtii waxay inoo suura geliyeen maanta inaynu inoo yimaado qalabkaas oo ugu muhiimsan yahay baalkii mashiinka lagu baarayay bahalka. reer Barco waxaan ugu bashaareynaa inaynu caqabad ka gudubnay. wixii kale ee inoo hadhayna waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay